الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لها شرفت بدن آدبان إذين سلامي وفائدة صدن إيشانات وقدم بيسي كتابك أين أقرنين بإذن الله تبارك وتعالى الفوائد للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله faa'iidadan baan ku khatimi doonaa alfawaa'id mukhtaara oon ka dooranay faa'iidooyinka badan ee kitaabku uu qoro waxaana raacin doonaa ogeysiis haddii alla idmo faa'iidadan wuxuu sheekhu ugu magac daray altawfiiqu waalkhudlaan tawfiiq maxaa lagu helaa waafajin ilaahay subxaanahu wa tacaala maxaase nasriga ilaahay iyo gargaarkiisa lagu waayaa arrinta lagu helo waxay ku xidhan tahay ama lagu waayaa waa maxalka oo ah qalbiga oo ahal u ah u suubada in la waafajiyo khayr iyo qalbiga oon u suubanin oo lagu waayo haddaba rabbi baa subxaanahu wa tacaala abuuray quluubtuna waa mutafaawita oo way kala tagsan tahay xagga diyaargarowga khayrkay ku kala tagsan tahay xagga qabuulka iyo yeelidda khayrkay ku kala tagsan yihiin wayna kala fog yihiin haddaba maxalka oo ah qalbiga haddii uu qaabilan linicma nicamta ilaahay hadduu qaabilayo uu aqbalayo ogolaanayo oo uu baranayo oo uu qadarkeeda garanayo uu khatarta ku imaan karta iyo waayitaankeeda dhibka ay leedahayna og yahay kadib wuxuu ku shukrinayaa muncimka u nimceeyey oo alla ah wuuna ammaanayaa subxaanah haddaba asbaabta khudlaanka oo in ilaahay subxaanahu wa tacaala uusan ku waafajinin khayr ama nasrada ilaahay iyo gargaarkiisa aada weydo iyaduna waa inuu maxalka oo qalbigii uusan u suubanin in wax la waafajiyo oo nicamta ilaahayna uusan aqbalaynin maxaa jira wuxuuba aaminsan yahay waxyaabaha uu haysto hadday tahay mulki iyo boqortooyo hadday xoolo tahay hadday reer tahay hadday caafimaad tahay hadday quruxiyo si kala tahay in isagu sabab uu leeyahayba uu ku helay inamaa uutiituhu calaa cilmin cindii buu leeyahay anigaaba u suubadaba anigaa waxaan iska leh cilmigaygii aqoontaydan ku helay xooggaygan ku helay waa shaqaystay laakiin mu'minku sidaa uu ka duwan yahayo wuxuu arkaa shaygani inuu yahay milkii rabbi subxaanahu wa tacaala tafadul iyo ilaahayna uu ku tafadulayana uu ku siiyo qofka uu rabo isaga oo mustaxiq aan u ahayn oo isagu aan yacni wax qasab ah aan jirin bal inuu yahay sadaqa rabbi xaggiisa ka timid subxaana faa'iidada sheekhu kusoo khatimay kitaabka haddaad xusuusataan kitaabka faa'iidadii ugu horreysay oon kasoo bilownay waxay ahayd shuruudu lintifaaci bilqur'aan qur-aanka see loogugu intifaacaa wuxuuna ku bilaabay aayad ku jirta fii suurati qaaf oo aayadda taqriiban 37 ahayd ina fii dalika la dikra liman kaana lahu qalbun aw alqa samca huwa shay marka qalbigaas waa kii rabbina u laha liyundira man kaana xayan wayaxiqa alqowlu cala alkaafiriin marka qalbigaas qofkii uu nool yahay oo u aqbalaya khayrka ayuu ku bilaabay sheekhu wuuna ku khatimay oo ku soo gabagabeeyay biidni illaahi tabaaraka wa tacaala ilaahina subxaanahu wa tacaala qalbi nool haynagu arsaaqo imaamu shaafici raximahullah ayaa su-aal la weydiiyey cajab badan su-aashaasoo ah imaamu shaafici waxaa lagu yidhi yaa abaa cabdallah yaa fadli badan ayuma afdalu lirajuli an yumakkana aw yubtala in qofka la makamiyo tamkiin boqortooyo madaxtinimo xoolo reer caafimaad xoog wax walba in wixii lagu tamkiiniyo oo lagu siiyo adiga awooddii iyo in lagu imtixaamo horta yaa fadli badan wuxuu imaamu shaafici laa yumakkanu xataa yubtala qofka lamaba tamkiiniyo oo tamkiin ma helo ilaa imtixaan uu soo maro ilaahina wuxuu imtixaamay faqad ibtalaa nuuxan wa ibraahiima wa muusa wa ciisa wa muxammadan salawaatu ullaahi calayhim ajmaciin marka waa ululcasmigii
ambiyada ilaahay iyo wada fadli badan iyo rusushu haddana shanta ulul casmiga la yidhaahdo muxamadun ibraahiimu muusa kaliimahu faciisa fanuuxu hum ululcasmi faclami gabaygaasaa lagu jumciyey way sabreen ilaahayna wuu makamiyey ilaahay subxaana wa tacaala baa makamiyey qofna yuusan u malaynin marka inuu ka badbaadayo imtixaan nabiyullaahi moxamed baa ka badbaadi lahaa isaga ayaa la dhibay dhagixii lagu dhuftay ayaa lugihiisa dhiigu ay ka soconayeen mandheer baa la dul saari jiray rasuulka isagoo in la dilaa la damcayey derbi baa lagu soo duminayey hilib baa sun loogu daraayey dhibaatada magaaladu ku dhashay laga cayriyey intaad aragtay baa rasuulka soo gaadhay kadibna ilaahay tamkiintii uu siiyey ayuu rabbi subxaana wa tacaala uu siiyey magaalada madiina islaa ku barbaarta ku sugnaatay haddaba ilaahay subxaana wa tacaala hayna makamiya inagana khayrka ugu dambeynta waxaan rabaa inaan idhaahdo biidni illaahi tabaaraka wa tacaala bitowfiiq illaahi subxaanah ilaahay wuxuuna waafajiyey kitaabkii alfawaa'id lilimaam ibnulqayim inaan dhammayno waxaan bilaabi doonaa in sha allahu tacaala kitaab kale oo sheekh ibnulqayim uu iska leeyahay oo la yidhaahdo addaa'u waddawaa daa wadawaa waa cudurkii iyo caafimaadkii in lagu tuso cudurka sheekhu ka hadlay muxuu yahay caafimaadkase lagu gaadhaa muxuu yahay waa kitaabkan aan ka dhicin in sha allahu tacaala 2 habeen ayaa waxaan qaadan doonaa fasax oo sabtidii axadda biidni illaahi tabaaraka wa tacaala isniintana kitaabkaas ayaynu bilaabi doonaa in sha allahu tacaala jazaakum allahu khayr وبارك الله فيكم وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين